بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha leh meel kasta aad ka joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkan gaarka ah oo ay maanta marti igu tahay saxafiyadda weyn ee caanka ah Aamina Muuse Weheliye oo runtii aan aad iyo aad uga mahadcelinayo barnaamijkan ujeedada loo soo abaabulayna ay tahay sidii looga hortagi lahaa kufsiga iyo dulmiga lagu hayo dumarka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan Aamina waxaan u malaynayaa way uma baahna inaan tacriifiyo Aamina waa la wada yaqaanaa laakiin Aamina hadda waxa weeye waxay leedahay shirkad madax bannaan oo lagu magacaabo Aamina Media Production Limited oo runtii hawlo badan u qabata ummadda Soomaaliyeed lana shaqaysa TV-yada Soomaalida qaarkood kuwa ka mid ah sidoo kale Aamine waa la taliye iyo maskax dhaye oo runtii aan aad iyo aad Soomaalida ugu baahan tahay inay helaan cid arrintaasi ka qabtirta sidoo kale waxaan Soomaalida ugu bashaaraynaynaa 1 Abriil in la furi doono TV cusub oo la yiraahdo Haybad oo ay Aamino maartay madax ka tahay Aamino aad iyo aad baan kugu soo dhaweynaa barnaamijkan walaalahana daawanayna dhamaantoodna ayakana waanu soo dhaweynaynaa waan salaameynaa maanta aniga iyo Aamino waanu isbedelnay aniga ayaa wariye ah oo su'aalihii weydiinaya barnaamijkayga la qayb qaadan doonta barnaamijkan runtii sidaan u soo sheegnay wuxuu u baahan yahay in loo kaco cod dheer iyo cod gaabanba lagu difaaco kartidii iyo mataqaanaa karaamadii ay dumarka Soomaaliyeed lahan jireen Aamino kusoo dhawow marka hore walaala waa dhawahay naasir cadceed waad mahadsan tahay marna sheekh naasir marna sheekaygayaa tahay marna wiil walaalkayaa tahay marna dumaashigayaa tahay maxaa yeelay dadka markay miidiyaha ku jiraan rag iyo dumarba annaga dadka noo dhaxa waa ixtiraamnaa one family aan nahay marka walaala waa mahadsan tahay allaha ku sharfo hal meelaan rabaa inaan sharxo warbixintii yarayd waan ma jecli title aanan lahayn in la igu sheego ani psychologist ahay laakiin weli maskax dhaya ma gaarin sababtu waxay tahay maskax dhayga ama psychotherapist or counselor markaa noqonaysid oo la talinaysid dadka oo mental health problemka qabo ama drug userka ama waxaas qaba waxaa la rabaa inaad tababar kale oo gaar ah oo kii jaamacadda ahayn aad soo qaadato digriga keliya makaa kaafinayo marka tababarkaas waxaa la rabaa ilaa level 6 lee laakiin ilaa level 4 markaa gaarto ayaa waxay noqon kartaa dhakhtar dadka daweeya ani hadda level 3 aan joogaa marka level 4 kii weli waa ii dhiman yahay saas la ajligeed maskax dhayida hadda waa bartaa laakiin weli ma aanan noqon dhakhtar maskaxda dhaya hase ahaatee waxa la ogol yahay sharciga waddankan wuxuu ii ogol yahay intaan license-ka ka helayo inaan dadka free ugu shaqeeyo oo aan si free maxay ahayd dadka counseling ugu sameeyo counselingkaygaas valid waaye referralna waa samayn karaa oo qof kaleeto oo dhakhtar waa u diri karaa oo taasna way ii suurtagelaysaa laakiin waxaa iga reeban inaan lacag ku qaato aniga oo aan dakhli iga soo galo marka intaas baa kaa saxa inta kale waa okay aad iyo aad ayaa u mahadsantahay Aamino waa saxitaan fiican weeye insha Allah tacaala waxaan ku rajaynaynaa inaad ku guuleysatid shahaadadaasna aad qaadatid ummadda Soomaaliyeedna waxaan filayaa inay aad iyo aad ugu baahan wax la taliya runtiina barnaamijkan ka hadlayno waa barnaamij ku saabsan la talinta naftirkeeda ku saabsan Aamina haddaan su'aal ku weydiiyo dabcan anaga ku soo marti qaaday laakiin adiga qudhaada waad ka hadashaa tacadiga dumarka ugu hayo maxay tahay sababta ka hadalsiisa ee codka dheer ugu hadasho ee aad u qiirooto markay dhibaatada dumarka dhacdo oo kale walaal naasir sababaha u hadla horta way fara badan yihiin laakiin waaba sababo iska waajib ah sababtu waxa ay tahay adiga marka aad qof qaangaara tahay qof islaamana aad tahay anoo islaamnimaba noo dheer dadka adduunka jooga ku nool qaar badan islaam maba aha ayagoo islaam ahaynba dadka dhibaatadooda ka hadlaan waa waajib rabbaani ah ku saaran waaye wax alla iyo wixii xumo ah oo bulshada ka dhex dhacaayo sida diinta islaamkaba ay qabto adiga nin wadaadaha tahay waxaan ka hadlaaya aad iyo aad u fahamsan tahay iyadoo aayaada iyadoo xadiida isdul taagi karta waxa waa xumaha waxaana la faray dad islaam haddaan nahay inaan yaddeena ku reebno yadda markaa waxaa leh waxa laga wadaa dadka powerka haysta awoodda haysta oo markaa iyaku sida hadda awoodda dowladnimadoo kale dadka haysta ayaa yadda wax ku reebi kara haddii aadan yadda wax ku reebi karin in aad afka ku reebto macnaheeda waxaa laga wadaa inaad ka hadasho wixii oo waxaan hala joojiyo waa qaldan yihiin inaad tiraahdo haddii aada afka markaa naftirkiisa marbay dhib kugu noqonaysaa inaad uurka ka necbaysato
waxa aad iigu farabatay waxyaabo badan inaan uurka ka necbaysto oo koow ay ka tahay dhaqanka dadka ma siyaasaddaad tiraahdaa ma wadaniyad xumadaad tiraahdaa ma dadka la xasuuqayaad tiraahdaa ma dadka layasayaad tiraahdaa ma kufsigaad tiraahdaa ma musuqaad tiraahdaa ma baabkaad tiraahdaa ma xaqdarradaad tiraahdaa ma isgumaysiga iyo anaa kaa fiican iyo anaa kaa laandheersan baad tiraahdaa marka sidaa uurka uga necbaysanahay waa daala aboowe waxaan soo gaaray heerkii marka aan afka ku reebi lahaa waxaan haddana isdoor biday inaan afka wax ku reebi karo sababtu waxay tahay kol haddaan xorriyad aan ku hadla aan haysto oo aniga inaan hadlaba ay iga xiran tahay internet connectionkayga iyo microfonkayga iyo maxay ahayd telefoonkayga xataa aanan u baahnaynba inaan television iyo radio iyo meele la istaaga aanan u baahnayn oo aniga full television access aan haysto maxaa iga reebaya midda kale qof waxaan ahay islaam ah islaamka shanta tiiro islaam iyo lixda iimaan ayaa naloo soo dejiyey oo ay tahay inaan rumayno kuna dhaqanno shanta tiiro islaam marka shahaadada iyo qirista ilaahay iyo maxay ahayto rasuulkiisa iyo rusulkiisa marka laga reebo oo maxay ahayto waxa ugu horeeya waxa waa aqiimu salaat واقيموا الصلاة معناها وحبا صلاة قفك إنه أوجو وصلاة الدكتور صلاة قف دكتور مسلم هاي أنا قفك مركو صلاة الدكتور أنا إسلام ماذا أفكر كمشيك شيء كان كراني إسلام هاي أنا إسلام هاي أشوف أون وحم حياتهم فعل أن لا إيمانه متى كلته ما دام أن هيشتو إن أودي هذا الك أود هذا الكدور شيء إنه قن كرتا ما هنا أنا ورية هاي كلي أنا ورية كلي مئة واحد أقف ورية إني ما كلي كم حد لا أنا برنامج كهذا كلي ما هيدا مركا أود يرت إيش بداية هايستو وأن ذاتك مركا هذا العدك ومال ديركو جارا كي دول مجفلاية يا كي لجو فلاية يا كي دول مجفلاية كي أتليناية يا كي أود لهابة مركا أبو سببها سيا إيجا كان إنا هتلو انقلادات كأفكار ريبة aad هذا يوم هتنتهي وحنا سوا كوبتي أورنتي صفة فهن وجه الشيء حديث النبي عليه الصلاة والسلام وها مرة منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان والنبي عليه الصلاة والسلام لي هي آمنة أنا نشرح ذي آمنة هرتا سؤال جرت مركا دبعت لك هلا يوحى في عنين لقيحه هرتا وامحي كفسي لمحوية أوكي أن كفسي وأود شغشو وفل لغفليو سيحوك له إيادا أو mana dhici karo ayadoon xoog loo adeegsan kufsigu qosol iyo isla ogolaasho kuma dhaco raaxo iyo taabasho naxariis lehna kuma dhaco kufsiga waxaa la socda jir dil maskax dil marmarka qaarna qudgooyo waxaa la socda wax la dhahayo organ failures in qofka organadiisa qaarkood ay failure garoobaan sida gabadha yar ee 16 jirka ah hadda raggii kufsaday maanta dilka lagu xukumayay maxay ahayd tona Puntland oo kaliyihii ka madoobaadeen waxaana u keenay waxay ahayd kufsigu marka waa maxay kufsi hadii la dhaho sharaxaad badan ay u baahan yahay laakiin waxa ku soo koobaya oo ay tahay dhan walba marka laga eego cilmi ahaan saynis ahaan xiqdi ahaan waxa waaye awood sheegasho lagu dulminayo qofka la kufsanayo jirki bini'aadamka iyada ay ahayd in looga fasax qaatana lagu carqaladaynayo oo lagu faragelinayo deetana wixii raba laga fushanayo qofkaasna rest of his life noloshiisa inta ka dhiman dil lagu xukumayo oo uu noqonayo si uu qof nolosha ka dhacay u noqdo oo aan nolol rabin aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay waa sax waa qeexitaan runa kufsigana waa wax ku yimaada qofka oo la qasbo oosan raalli ka ahayn xataa waxay ka dhex dhici kartaa dadka isqaba dhexdooda hadduu gabadhi ku qasbo ama ay ninkii qasabto waxaa la oran karaa in nooc ka mid tahay kufsiga yahay aamino iyo soomaali haddaanu nahay dad muslimiin ayaanu nahay islaamkii uuna soo gaaray bal haddaad dib u jaleecdid ama wixii aad soomaalida hore ka maqli jirtay soomaalida hore dumarka sidee u ixtiraami jirtay dumarku booskay lahaayeen ma sidaan oo kale u dulmanaayeen mise way ka yara duwanaayeen dumarka soomaalida waagii hore horta aboowe aniga forever ma soo noolayn inkastoo markaan kaftamaayo aan idhaahdo aniga abootaxaabal da'di ka yareeda ahay maadaama soomaalida amaamadooda ahay oo mid walba mid aniga iga weynay mid aniga iga yarba u maamaamin ay leeyahay daadaas waaba iska ogolahay laakiin ani maadaama aanan qof mar walba soo nooleed aan ahayn oo aqoontayda ay ku eg tahay intii aniga aan noolaa intaan iskuulka bartay intaan bay'adda ka bartay intaan geesayga agaarka ka bartay intaan ilbaxnimada iyo safarka iyo shaqada ka bartay oo la isku geeyay ay aqoontayda tahay noloshii hore oo ani aan soo maray ani waxaan xasuustaa dad wada degan nolol wada degan dowladnimo shaqaynaysa
maxay ahayd tonay adeegyada bulshada oo shaqaynaya diinta oo la ixtiraamayo wadaadada diinta oo naftirkooda ah wadaado laga haybaysto oo hadda sida hadda la leeyahay sheekh hebelkan muxuu sheegayo waxaas aan la dhihi jirin oo wadaadka haddii uu kula hadlo ama wadaadba hadduu u soo dhawaatoba wadaadba meesha soo galo ay ahaydba bas wax ka dambeeya may jirin quraanka wadaadku ku saaraya xataa ku caafimaadi jirtay maxay ahayd hadda waxaad arkaysaa anu beri dhaweed waa xanuunsaday naasirow quraana la isaar quraanka waa lagu saaraa maanta dhan waa lagu saaraa maanta dhan waa lagu saaraa caafimaad male horta ilaahay caafimaadka hay laakiin quraanka xataa qofka ku saaraya iimaankiisa loo baahan yahay waxaan anigu soo maray oo aniga aboowe indhaha soo kala qaaday gurigeenna oo xamar habeenkii jimcaha soo galaya khamiista jimcaha soo galayso bunaa la dubaayaa daangaa la dubaayaa ana dhaqan ahaan reerkaan kasoo jeeda bunka iyo waxaan u leenahay dhaqanaa u leenahay kuraas layskama taagaye darmaa la dhigayaa dhulka wadaadka waa imaanaya macalinka dugsiga leeba la wacayaaba wareer kale maba jiraba haddii wax weyn jira unbaa dad dhowr wadaad oo isaga soo wadanaya waaba fariisana wadaadkaas bunkiisu cogiisu cunaya shaahiisa cadayska cabaya ama bigays wuxuu rabaa u jecel yahay maxay ahayd tonay quraan oo akhrinaya tahliilna waa tufaya baaqliga tahliisha lagu tufay ilaa iyo arbacada kala lahaynaya maadaama khamiista wadaadka uu soo noqonayo maanta dhan iskoolka markaa aadaysaana la dhaha tahliisha waa lagugu firdhinaa waxaaga maxay ahayd waana lagu firdhinaa tahliisha guriga waa lagu shushubaa shushow bax balaayo shaydaan ma jiro macnaha dadka waxay ahaayeen dad diintooda iska aaminsan dowlad fiican oo u shaqaynaysana haysta cunugiina iskuul free oo u diraan haysta filimadani waxaan anshax xumadaana dowlad ka jasuuraynaysa haysta waxaan diidaa inaan su-aasha aad weydiiso hadba dhinac ku dhufto laakiin jasuuradan xataa adhow inaa wax iga weydiiso waa jeclaan lahaa haddaa xasuusato ama hadda nood ka soo qaadato because qayb gooniyaha kalaan rabaa inaan kaga hadlo marka waxyaabahaasoo dhan ayaa jira dadku intaan way ka niyad fiicnaayeen hadda xilligan ka hadlaayo ma aha qarnigii 20aad leh ka hadlooya ani kii 18aad iyo kii sayidka noolaa iyo kii axmed guri ani ma noolayn saas la ajligeed inta aan aniga noolahay oo aan ogaa dad badan oo Soomaaliyeed ay ila ogyihiin kuwa aniga iga da'weyn ila ogyihiin kuwa ila mid ila ogyihiin dad noloshoodu jihaysan tahaan waa jihaysneen dugsiga quraanka horta cunuga af markuu dhasho dugsi quraana la geynaa waxaa la dhihi jira carabkiisa xaaraanta laga gooyo anuga on carabkiisa xaaraanta laga gooynin maba la geen jirin ba iskuulka waxaa la dhahaa interviewga anugan quraan ma dhigtaa aa la dhahaa dirtoorka iskoolka markuu cunuga qabanaya saasuu dhahaa haa quraanuu dhigtaa anugan quraan dhigan iskool maba la geen jirinba dad jihaysan oo maanta wax isku falaaya oo hami leh oo beri inay dhaqaatiir noqdaan inay injineero noqdaan inay waxaan noqdaan inay maxay ahayd toona meel fiican ka baxaan inay waddanka maxay ahayd usoo abaal gudaan ka fikirayaan ahayd waxaan iyo kufsigan iyo fararaqdan iyo iska daba wareegan iyo canugaad dhashaba u cabsadaan socotay walaal wax jira ma ahayn laakiin ummadan waxaan u malaynaa gadaala laga soo inkaaray ani sidaasa ila tahay wixina inkaarana ma noola oo waa dhinteen oo cafis weydiisamayno aad iyo aad baa umahadsantaha aamina waa runta waan dareemi karaa xilligii fiicnaa ee dalkuu soo maray soomaalidu soo martay xilli aad iyo aad u qurux badan buu ahaa dabcan waxaad ogtahay aamino dhibaato badan baa dalkii ka dhacday dagaalo badan ayaa dhacay 27 sano la qaxsanaa marka hadda kufsiga dib ayuu usoo batay waxaana keenaysa in dee social mediahii ama warkii horey uu soo baxayo marka maxaad is oran kartaa kufsigan batay ee faraha ka baxay sabab buu yahay maxaad se kala socotaa kufsiyada meelaha kala duwan ay ka dhaceen ilaa hadda maxaa meeqa xaaladood ayaad adigu maqashay ama la socotaa walaala horta kufsiga meel kastoo ka dhacaa waana crime oo waa dembi laakiin naasirow midna waa lasoo buunbuuninayaa oo halkanaa lasoo saarayaa oo waa la sheegayaa midna lama sheegayo laakiin meel kastuu ka dhacaa xamarow ka dhacaa wuxuu ka dhacaa puntland iyada waxa loo arkaayo oo fara badan tahay waxa waaye waxa wararkii lasoo tabinooyaa ma fahamta saasaa loo arkaya meel walbuu ka dhacaa ma jiro waan arkayay dad iska caaqaho iska aqli xumo social media isku haysto annaga haddaan reer hebel nahay haddaan hebel leenahay annaga wax ma kufsano cid aan wax kufsan ma laha cid aan wax kufsanin ma jirto kufsiga meel walbuu ka dhacaa waa mid la ribood gareeyay oo la ogyahay iyo mid aan la ribood garayn laakiin meel walba kufsigu ka dhaca walaalo waana jiraa inaan lasoo ribood garay iyo waxa asal kufsiga qasbaaya oo keenayana maaha keliya social media ma aha walaalo dowladnimo keligeedna ma aha dadka ayaa tayadooda xumaatay naasir dadka ayaa taya xun ummaddu marka tayada laga siibo oo wanaagga laga siibo
oo diinta ay ixtiraami waayaan oo diinta sidii qabiilkii reer hebel ay kaliya afka ka sheegtaan oo salaadahooda aan la aqbalaynin because xaaraanay cunayaan oo maxay ahayd toone aan soonkooda la aqbalaynin because xaaraanay ku dhex jiraan oo mid walbaba midka kaleeto ee gaangastarka ah ee kursiga xukunka ina adeerkiis ee taga uu dadka kala ku caaya daraadii mid xumo gaangastar ah oo stupid ah asaga ina adeerkiis hadduu rabo qamriga jooga ka caba oo jooga ka kaadsha uu dadka kale ummadda kale u ajaafeeyo oo uu ku caayo ya waxaa liidanaya shacabka wuxuu noqonaa qolo ewelba la jiidayay oo qolada fiicani jiidaysay oo wax jiida waaya iyo qoladii wax jiidaysay oo intay daalaan ayaguna isdhigtaan oo niyad jabaan oo isdhahaan dowlad meeshaan male waxaaga male si lagu joojiyo kufsigaan lama yaqaane iska dhaafa ma garatay marka intaasi iskaashato xuma falihii mar walba wuu joogay da'duu doona ha ahaado beriga ha fiicnaayan kasoo sheekaynayna xuma faluhu wuu joogay laakiin sharcigu ka baqaayay diin soomaalida kama baqdo naasirow nin sheeqahaa tahay laakiin maanta waxaan ku caddaynayaa soomaalidu ilaahay kama baqdo rasuulkiisana kama baqdo mana aha dan diin lagu xakamayn kara ma aha haddii dad diin lagu xakamayn kara uu yahay hadda carruurta iskama kufsadeen ismana dhammeeyeen ismana qabyaaladeeyeen laakiin waxay ka cabsadaan sharci adag naftooda iyo sadooday u cabsadaan haddii dadkan sharci adag ee gacanta ku qabta la helo oo kii wax kufsada la dilo kii wax dilana la dilo yow yahaba aan la dhihin wallaahi oo bilaahi oo tallaa dulmiga waa joogsanaya marka dowlad la'aanta meela ka jirtaa ka hadda dowlad la'aan ma nihin dowlad la'aan ma nahay ma nihin intaas oo maamul goboleed oo maxay ahaatoonay ku soo kulligood maxay maamul federaal hoos yimaada iyo dowlad functional ah oo madaxweyne leh oo ra'iisul wasaare leh oo intaasoo kun oo ciidan oo caalami ah iyada ilaalinayso idaaba la ilaaliyo waayaaba waxay hayd dad ilaalisaaba aad joogaan laakiin hase qaladka meesha wuxuu ka soconayo waxa waaye laamihii cadaaladda ma leh cadaalad ahaan uma shaqaynayso naasirow hadda ka hor waxaa dhacay arrintan kufsi ma aha laakiin si aan uga faa'iidaysanayo igu soo dhacday waxaa dhacday sheekh mukhtaar nin la yidhaah oo garsoore ahaa soomaaliya ayaa waxaa la soo xiray dhowr gabdhood oo soomaali ah oo dumarka qararafta la dhahayo berigaas marka baabuuray ku doonan jireen ganacsi oo ma iyo waxaa laga wadaa dumarka oo beec mushtarka ah alaabada yaryar dhulka ku keenaya diyaarad iyo may gaarin marka waxay tegayaan nairobi iyo meelahaas iyo daarisalaam iyo waxaas tegayaan marka waxay soo qaadanayaan alaabo ooma iyo dacas iyo sakreedka iyo waxaas ah marka alaabtii meesha maadaama dowlad ay jirto qaaraa kotorabaankia marka lagu soo qabtay waa la xiray dumarkii lixay ahaayeen lixdii markii la xiray sheekh mukhtaar waxaa loo soo gudbiyey garsoore waaye xaakin u ahaa oo maxkamadda jooga hadda inuu dhinto amalayna allah u naxariisto waxaa loo soo gudbiyey dacwadda 6 qofaa ku qoran maxkamaddii markii la gaaray in isaga oo xukumo hal gabaraa loo keenay 5 kale ma leh heblaayo hebel tii kale gada aniga waaya dhahda wuxuu yidhi aabe dumarkii kula xirnaa waxay tiri garsoore mid kasta habeenkii soo kaadi la dhahayay tiri bal dhegeyso warkaan heblo kaadi ma ku hayso bax soo kaadi abaabkaana laga furay mana soo noqon inay dhahda okay wuxuu yidhi adiga wax soo kaadi ku dhah maa weyse hay tiri aniga wax soo kaadi yidhi ma leh askarigiibu wuxuu ku yidhi hebel gabadha hadday soo kaadinay ka furuu yidhi katiinada waa laga furay adiguna baxda soo kaadi buu yiri buruskii intuu qaatay oo gub ku siiyey bahalkii wuxuu yiri maxkamadda halkan ay ku xiran tahay buu wayna dhamaato maxkamadda gabadhii asaa daayay macnaha cadaalad darrada fiire ya dowladda jirto markaas hadda oo dowlad barkumataala afka ka jirto meel walba oo hilfa qabyaaladeed la tushay naasirow aniga adigu hadda isku calan ma nihin kabaranahe soomaalina waana هذا دتك كان لويديو أنا على كي جوا هيرشبيل بنادر أنا كنا لكن بنادر هذا حباب الله ما أقلبه هذا أنا كأجا ما بنت اللي أنا ما قال هذا أنا أديكي أوش مالي إسلاه أمني إيه ناصر لا بقى علن كلا له لا بقى علن قبي على ده كلا لنا ريرت صح كي بلو جاهب واكو كلا تقلنا نعم ما فاهم يستحق كل هاي ما كده
صح way xaqiiqda waa saas waay aamino waa runtaa weeye dabcan kufsiga markuu dhaco dumarka saameyn weyn bay ku yeelataa marka dabcan maadaama arrimahan u dhunduleeshid bal maka saameynta iyo dhibaatada dumarka marka la kufsado kadib maxaa warka haysaa ama aad isleedahay dumarku way ku dhici kartaa ma horta saameyntiisa wax la xisaabi kara maaha oo horaaba kuusha dil buu ku xukumayan qofka la kufsado waxa kaleeto oo maskaxiyan u daamaj garoobaya dadkii gabadhii cunugii la kufsaday ama gabadhii la kufsaday dadkii dhalay fiiri naasir nolosha silsilad waaye oo isku xiran tahay nolosha ilaa silsiladaasi way kuu soconaysaa ilaa maalinta aad nafta weydo oo aad qabriga gasho maalintaas ilaahay xaggiisaa jirtaa alla wuxuu ku baday unbaad mudanaysaa noloshaas isku xiran marka annaga dhaqan ahaan gabar kasta waxaa loo diyaariyaa guur iyo mustaqbal nin iyo caruur gabadha marka la kufsado mustaqbalka halkaasu baws baa la geliya baws waa adi cajaladaan la fiirsanayo baws la geliya oo kale markii la kufsado gabadhaas bawsaa la geliya kuwii kufsaday iska daaya reerka iyada ka dhalata hadhow in la kufsado ku caayaya gabadhaasi maskaxiyan xataa haddii ay u badbaado ama iyadoo iska waalwaalan ay noolaato mustaqbal wanaagsan ma helayso nin dambe oo iimaan leh hadday hesho oo guursada ninkii reerkiisaan nabadgelinaynin asxaabtiisaan nabadgelinaynin waa daamaj soconaya ilaa iyo sanjigeeda ugu dambeeya halkanna waaba og tahay oo dalalkan annaka aan joogno waaba isdilaanba marka dambe suicide bay sameeyaanoo way dhintaan ma fahamtay marka walaalo aduu bal waxaad qiyaastaa haddii kufsigu xawligu hadda ku socdo annaka ummad ahaan see noqonaynaa bulsho ahaan see noqonaynaa soomaali ahaan see noqonaynaa hadda waxaan nahay bulsho muslim ah saa annaka isku haysano actually maxay ahaatoona ilmahoodiina kufsanaya kufsigii waa socday heblaa la kufsaday 12 jiraa la kufsaday war 2 sanaa la kufsaday dhowr bilood mid jirtaa la kufsaday waxaagiyaa la kufsaday wixii waa socdeen see u malayna inay noqonayaan ya hadda waxaan ka cabaadaynay dadka ajaaniibta la guursanayo ani waxaan ka soo horjeedaa dadka ajaaniibta in la guursado faraceena iyo soomaalnimadeena inay barxanto dadkaan jeclaynaan ku jiraa haddana haddii kufsigu iska socdo de annaga oo dhan xaaraan noqonaynaa waxaan noqonaynaa qoomul xaaraamiin ah oo maxay ahaatoona aan diinna haysan hadhowna ciqaab alla oo ilaahay uu noo soo dirana ku habboonba in la ciqaabo ila ciqaabtu way kugu dhacaysaa ilaahay intaasoo ummadooda la halligo oo dhulka laga hoos mariyay ma fahamtay ilaahayna ummaddiisa inaad ku ciyaarto oo aad ku kufsato umaanu abuurine rabbigay ummaddiisa inaad u nabadgeliso u abuuray oo diintiisa ku dhaqanto deetana uu naar iyo janno mid hadba midkii aad shaqaysato aad hesho marka walaalo saamayn halka hoose ilaa halka saraa ayay nagu yeelanaysaa because marka dadka mentalitigooda ay wax noqdaan oo qalbiyadooda wax noqdaan dadka cilmi kasta ay bartaan waxba ma taraayo ma fahamtay ummadaha kaleeto la soo shir tegi karto oo la soo garab istaagi kartona ma noqonayaan marka waxaan noqonaynaa ummad dukun daakuna aad iyo aad waa runtaa waa xaqiiq aaminay waxaa ka hadashay arrin dhibaataa ka hadashay kufsiga markuu dhaco rag baa geysta ragga qaarkoodna waa la soo qabtaa qaarna weligood lama soo qabto laakiin hadda xaaladda halkay marayso dad badan gobollo badan guriceel waa maqalnay gaalkacyo waa maqalnay maanta 5 nin baa war fiican la sheegay in lagu xukumay dil marka maxaad kula talinaysaa maamulada ama dowladda ama dadka ay talada ka goodo in ay ciqaabtooda waafajiyaan dadka noocaas oo kale ah horta ani maadaama aanan awood lahayn oo hadda awood ani aanan haynin oo dawli ah iyo mid kaleetaba oo waxayguba ay tale iskaga egyihiin horta maamulka puntland oo maanta xukunka rida aad iyo aad ugu hambalyaynaya waxaan leeyahay shaqo fiican aa qabateen waxaan leeyahay niyadaad noo dhisteen waxaadna tusteen dambiiluhu inaanu dhuman karin horta idinka puntland waxaan ku dardargelinaa ilaa midka ugu dambeeya intii kufsi ka dhacda eriyada ay iyaga ka taliyaan horta in saasoo kaleeto xog loo marsiiyo midda kaleeto xukumadan kufsiga waa in laga eegaa meesha ugu dambaysa xukunka ugu adag waa dil midka ku xiga haddii uu jiro isagana sidoo kale laakiin inaan loo jixin lana jeclaysan kufsade inuu dadka kusii dhex noolaado ta kale waxaan rabaa inaan u sheego dadka baawarka iskale ama awoodda ka go'do waxa loo baahan yahay wax la dhahaayo care after rape markuu dhaco kufsiga markuu dhaco kabacdi qofkii victimka ahaa ee gabadhii cunugii yaraa ee la kufsaday
iyo waalidkii iyada dhalay keeray u baahan yihiin halkaas weli ma u malaynayo inay jirto naasir cadceedow adigu waxaasaad ka hadlaysaaye magaalada muqdisho waxaa hadda ka dhaca waxyaabaha domestic violencega la dhahayo ninka inaagtiis waa la isqabanaa ninka marka uu dhowr dilna waa ka dhaceen oo niman iyo naaga iyaga isqabeen isdileen waxaa dhacda hadda anigu muqdisho aan leeyahay sababto xitaa iyadaan ogahay hadda keesaskan inay ka dhaceen waxaa dhacday gabadha markay dacwooto ninka hadduu qaba xataa gabadha markuu dilo hadday dacwooto oo stationka tagto stationkii booliiska iyada ma badbaadinayo kayskiina qaab kale oo sharci uma galayo ninkii ay ka dacwoonaysa loo wacaa kay ka dacwoonaysay loo wacaa la dhaha haye salaamu calaykum ha hebel miya ahaa naagtaadii inta joogto adigu ku dacweynaysa kaala soo doono waa arrin aad iyo aad khatarteeda u leh waaye ninka markuu gabadha guriga geeyo haddaaya waa cakisay dee markaan naftu dhaafinaya waana meeshii dhammeeda dowladda weyneed ay fadhida waaye marka walaala waxaa loo baahan yahay annagu meelaan aadna ma garanayno maanta haddaan garanayno dumar ahaan meelaan aadno raggaba waa ka guuri lahayn wallaahi waaba ka guuri lahaynba ayaga dhan aan ka guuri lahayn laakiin inaan heerkaa la gaarno ma doonayno mana ka maaranno waana raggeennii waa dhalnay waa wiilasheennii waa maxay toonay annagay rag noo yihiin waa noo dhaxaan waa u dhaxnaa maxay toonay hase ahaatee waxaa loo baahan yahay xukunada dadka ee awoodana xukunada adkeeyaan horta baryaha hore dilyaan looga cafinayn absolutely shantan hadda la xukumay hadday dhacdo oonan berri xabsiga laga sii day reer looga sii day taasaaba kasii baqayaaye ooba ay noqoto in la qisaaso wallaahi oo bilaahi oo tala waa yaraanaya kufsi dambe xataa ma la kufsanaayo kufsi dambe ma dhacayo inta kalena ha lagu xejiyo aaminana hala soo gabadhii caasho yarayna hala soo raadiyo kiwi kaleeto oo hadda la warwareejinayo xilli hore u ahaa oo reer cadaado hala raadiyo hadday wax dileen hadday dileen waa dileen haddaynan dilin iyaguna waa inay dilaan xukunka ayaga ayaa galmudug iyo meelahaasi hoos tagtaa cadaado waa inay ayagu inay qaarijiyaan waay absolutely nin wax kufsaday xamar meesha raba yuu noo noolaaneen waa taas horta waa mid ta kale waxa waaye raybka iska keer garayno ta kale waxa waaye naasira oo muhiimka caawa aan rabo inaanan ka boodin aan rabo waxa waaye nimanka wadaadada ah ood adigu ka mid tahay oo dadkaa waaweyn ka mid yihiin culummada ixtiraamay leedahay walaalo waa ixtiraamnaa annaga laakiin bal sheekadan bal hadalka aan kuusoo soo si fiican ii dhegayso dadkuna hayla maqleen haddii inankii yaraa ee qoordheeraha ahaa ee hadda soo baxay looga sheekeeyo siduu geedkiisa u dheerayn lahaa iyo siduu dhumuc ugu yeeri lahaa iyo siduu geedkiisa u kicin lahaa iyo siduu saliid saytuun u marin lahaa haddii halkaas looga sheekeeyo naasirow miyaynan ahayn in loogu daro siduu u damin lahaa iyo siduu u kontarooli lahaa fair question waaye naasir I know it's a hard question su'aal adag waaye laakiin waa fair question haddii ninkii culimmada ahaa ee masaajidka imise sanaba culimmadu ku dhex sheegayeen sida geedka ninka loo gabadha loo geliyo iyo sida loo weyneeyo iyo sida loo dheereeyo iyo sida dhumuc loogu yeelo iyo sida saliid saytuun loo cabo iyo sida loo yeelo haddaan loo raacinin ilmahaas yaryarka ee dhallinyarada ah haddaan loo raacin siday geedkooda u xakamayn lahaayeen oo aan loo raacin siday u damin lahaayeen markuu kaco iyaga oo naar xalaala haysan dee markaas cid walbay gelinayaan cid walbay la aadayaan habarta dhashan ha ahaatee marka waxaa nimankiina culimmada ah waadna hagrateen aniga waan idin eedaynayaa idinma aflagaadaynaayo waa aflagaada igama mudnidin culumaad tihiin culimmana waa la ixtiraamaa culimmada aniga eedaa u qabaa culimmada waxaan rabaa inaa u gardhigto haddaa dumarna culimmada waa u gardhiganaynaa haddaa hooyooyinna because ubadka maalin walba la kufsanaa anankaa dhalna waa u gardhiganaynaa culimmadu si xun ay noo galeen culimmadu waxay nimankii u sheegeen sida bahalkooda loo kiciyo sida loo dheereeyo sida loo weyneeyo umana aanay sheegin sida loo yareeyo sida loo xakameeyo iyo sida xalaal loogu raadsado uma aanay sheegin horta taas culimmada u haya adaa nafarta kaa xiraaya oo taa inaad gaarsiiso kii barnaamijkayga maqlaya waa maqlaa kaan maqlayna walaalow teleefanadada ayaa yaqaana nimankan maalin walba santuuka ka sheekeeya dhegta ugu sheeg teleefoonkooda waca oo u sheeg anaana soo faray wallaahi anaa soo faray naasir anaa diyaar u ah inaa xataa life ii soo geliso oona iskayga u weydiiyo waxaan rabaa how come ay waxaas ugu sheegaan wixii kalena ay ugu sheegi waayeen taas horta waa taasaa ta kaleeto nimanka xukunka haaya ee shafka noo garaacay ee yidhi annakaa meeshaan dowladka ah
ورا دولة قبلات هاو أما سروال قابلو هاو أما كوفي بعد لا هاو I don't care واحد هاي لكن هذا 1 كيلومتر سكوير هدي أتشكت إن أديك ما ضحكت هاي أديك أيها كمسؤولة دقيقة دي دقوق في صدق حتى هذا كمسؤولة كده قبري دقيقة دي أوكوك في صدق أنا لا قربها سو ما قرني مركز نمان كان أود الناس شيئا يا والله ما متنا كينان هم هنجوريجين وشوبين إننا دمران هاي واحد إلهم هنجوك في سنة أنا جودة أسكسرينا هدانا هين حكم عدالة أو أدك يا حكم عدالة أو أدك منا أمين واي شيئين أنا بحبها هاي عنانين قبل منا وقرنتها علماء السيطون واي شيئين أردوا يوتيوب كقال هالكاس كسو آخرسو dumarka qaar xoolaha jira moogta oo victimization-kooda maxay raalli ka ah markaa boowe nimanka xukunka haaya ayaguna hay naga hagaageen ama yaanay inoo sheeganayn annaga inay xukun hayaan ya oo hay noo kala baxeen ama waa ishubaynaynaaye haddaanay ahayna hay naga celiyeen wuxuushtan degan meesha ay iyagu xukumaan oo ay sheegteen in iyagu xukumaan dawladnimo dhab ah na tusaano waxa ugu weyn tan ugu weyn waa tan dawladnimada maxay ahaytoona dawladda federaalka ah ugu weyn meesha ayada yaaba gacmo ku gambado maanta xafiisyada lagu bambeeyay kowde laakiin ayada ilaa iyo kuwa maamul goboleedyada ilaa iyo gudoomiye degmo war haddaada waxba noo tareynina waa inaan naga hor wareegtaan oo naga hor wareegtaan meesha marka walaal fariintaas adaga iga gaarsiin amina aad iyo aad baa umahadsan tahay hal mar haddaan ku saxo kolley aniga intaan masaajid joogay ama culimo dhegeysanayay horta cashirkaas weli ma dhegeysanin casharadaas waxa ugu horreeyey ninkii la oran jiray dabcasar halkaa ka bixin jiray maya dabcasar keliya maaha sheeqow naagtayda siilka ma u leefi karaa ninaan la weydiin male shibiya layaa la weydiiya oo umulaan la weydiiyo oo cid walbaa la weydiiyo inay mas'aladaas ka hadlaan keliya ma ahane wax kalena kuma aanay waxaynin soomaadan kara shiiqow bahalkaa igu yara see u dheereeya gebigooda la weydiiyo if you really want aniga linkigooda waa kuusoo wada diri karaa haddaanay caawa intay ku garguuran aanay ka wada tirin youtube-ka waa kuusoo wada diri karaa linkigooda exactly ayagaa la wada weydiiyo su'aalahaas ayagay ahayd inay yidhaahaan waxba siil ha leefine ya anigana ha i weydiinine maandhow diintu sida fiican ay ku farayso orada u raacina yiraahan bay ahayd soomaadan garan marka waan ka xumahay runtii laakiin dadku waa inay run isku sheegaan maaha in been la isugu nacamlayma runtii la isku sheego waa inaas runtuna way qaraartaa wayna adag tahay laakiin kama baaqsan karayno haddaan rabno inaan qaladaad saxno waa sax weeye aamina aad iyo aad runtii in la sheego waa waxa meeshan u joogno waa waxa aan rabno dumarka dulman in ay dadka dhan ka wada qaybtaan culummada saxafiyiinta aqoon-yahanada siyaasiyiinta dhalinyarada cid walbana aanu jecelnahay inay codkooda ku buuxiyaan dabcan culummada mar walba horta waa la eedeeyaa waxaana lagu eedeeyaa inay mararka qaarkood ka gaabsan laakiin hadda jimcihii lasoo dhaafay culummo badan oo soomaalida magaca ku dhex leh kufsiga way ka hadleen wayna dhaleecadeeyeen culummadan in la bareeshgareeyo oo saxaafadda wax looga sheego aad iyo aad bay horta ayakan u baahan yihiin culummadu dee waa bashar dadku way khaldami karaan in wax loo sheegan aad bay u fiican tahay aamina marka hadda maxaa xala oo kufsiga looga hortegi karaa inkastoo aad qaybo ka mid a soo taabatay xalka muxuu yahay hadda dhalinyarada wacyigelinta xalka waxa waa horta waalidkiina ilmahooda ilaashtaan hadda gabadha caasho yaroo kaleeto niman hooyadeed kala xagga hooyada ka qaraaba ayaa ku jira lagu leeyahay oo habeenkii oo dhan la raadinayay ayagaana soo kufsaday gabadha kadibna ninkii qabrigii ay lacagta ku dhiibeen ay dhaheen qoday rabeen iyadoo loogeen in la aasakiya ku soo jeesto ku giirtay saasaa loo fahmay horta waxaa ogaanaysaa psychologically cilmiga psychologically wuxuu sheegayaa ilma kufsi markuu dhaco ilmo keliya ma aha siiba ilmaha ilaa qofka weyn waa qof weyn waxaa badanaa kufsigaas kufsada ilmaha qof ay yaqaanaan oyna shaki ka qabin oy raaci karaan way aaminayaan barnaamijka ina aad ugu talax taga marraba because waa soo duubay already khamiista la sii daynaa laakiin ilmaha badanaa waxaa kufsado dadka ehelka u ah dadka dariska u ah dadka qaraabada kore ah ta kale oo muhiimka naasirow oo absolutely gabdhaha Soomaaliyeed inaa u sheego aan rabo waxa waan anaka badanaa ama gudaha ha joogto ama dibadda ha joogto furiinka nagu badan baryahan ilmo oo hooyada la dhacayso la kufkufaysa kaligeed aan nagu badan hooyadii waxay samaynaysaa nin kasta oo Soomaaliya ilmihii waxay dhahay abti waaye no qalad waaye nimanka aan ilmaha waxba u ahayn ee qaraaba qansaxa ah oo ilmihiina dhahaysiin
abtigiin waaye adeer ma dhehayso because ninkii u xanaaqsan tahay so adeer ma dhehayso ma fahamtay adeer ma dhehayso abti waaye aad dhehaysin ka dhaadhacsiinaysiin hebel salaan oo aad ina ilmuhu aamino aad u xiriir aamina aad u dhex abuuraysiin nin aad adiguba garanaynin akhlaaqdiisu sida ay tahay ka daaya ilmaha arrintan weliba dumarkay ku socotaa ragga badanaa ma sameeyaan nimanku badanaa ma sameeyaan dumarka sameeyo hooyooyinow ka dhaafa ilmaha u sheega qofnana inaynan aaminin no one to trust qofnana inaynan aaminin haddaad awooddo cunugaaga wuxuu jecel yahay biliis u gad lacagta ilmaha ha ka cuna qabataynina wuxuu jecel yahay u gad meeluhu jecel yahay biliis gey si aan hadhow lacag iyo nacnac iyo waxaan jirin loogu sasabin war waxaa arkaysaa ilmo aradan oo kaba haysan oo waxba haysan oo Yurub ku nool lacagna hooyadiis ay ku qaadato oo lacagtaas ay ama ayuuta ku jirto ama meel kale u dirayso ama meel kale ku daaranayso waa run waa baahida waa badan tahay laakiin ilmahaaga lacagtooda ku bixi ayaka ku bixi aaminaadna ha u abuurin adeera iyo kana eedda iyo tana waxa biliis iska dhaafa ha ilmihiina ha ka dhaadhacsiinina strangerska inay adeer u yihiin inay abti u yihiin ha ka dhaadhacsiinina si cunugu u foojignaado ilmaha bara qof aanay garanayn inaynan raacin qof aanay garanayn inaanan waxa ahayn in adiga bas haddaa single mother ta aniga bas wax ku adheecinuga aniga bas wax ku if I die haddaa aniga dhinto ka dardaaran intaan nooshahay ka dardaaran cunuga aabihiis si kastoo isku dagaashin aabihiis waay wilaa qore waxaa qore wax wil la dhahayo dardaaran wil waxa waaye af ingiriisi wilkaas waxaa tagaysaa qaarkood raqiis waa £100 ka yar jooga ama $100 ka yar wilkaasaa qoraysaa waxaa qoraysaa ilmahayga haddaan dhinto waalidkay hala siiyo ama walaalkay hebel hala siiyo ama odagay hala siiyo aabaha ilmaha dhalay si kastoo idinku iskugu xumaatiin ilmaha asaa kula dhalay haddaa aniga dhinto ilmahayga waa inay aabahood aadaan aabahood haddii la heli waayo ama uu asagana dhinto kabacdi ayaa ani walaalahay iyo mudanayaan laakiin ilmaha toosiya sii dardaarma social services xataa hadda ilmaha iska qaata waxyaabaha keenayo oo waalidka waxa waaye waalidkii uma sameynaa waraa maalin kasta ma noolaanaysta adiga waxaa la yiri colka digtiin qab nabadu kuma dishay ka sii dardaaran ilmaha maalintan dardaaran qoray aniga waxa ka soo wareegtay baan u malaynayaa 13 sano ka hor ani dardaarankayga qoray ilaa haddana waa noolahay ilaahay nafta igama qaadin Yurubaan joogaa dardaarankayga waa qoray aniga if I die ilmahayga meesha la geynayo wax ay mudanayaan hanti haddaan ka tagay waa yaraata ha badnaato qalab waxaan ka tagay cidda la siinaayo cidda geerideeda la ogeysiinayo next of kin waxaa soo dhan laga fikraa loo baahan yahay laakiin intaad jaq iyo qabyaalad ku maqantiin ilmaha yaa la idinka dhamaynin ilmahana u sheega strangers wax inoo ahayn war ana adeerka hadduu yaa adiga kula dhasho waa abtiga ha dhihin waxa laga ninkan relative anna that's it waa dhamad relative anna ya relative ayaan nahay waxana hooyo qaraabaan nahay qaraabo kore aan nahay ani asaa qaraaba hebel salaan iyo hebel kayaan iyo haba u dhihinba si ilmahaaga ay u ogaadaan who they related cidda iyo ka xiriir ay la leeyihiin cidda ehel u sayna ehel kasta u raacay war gabdhaha xataa gudaha joogo waa dhamaata Soomaalida markii la is aamini jiray oo ninka jidka socdaan wallahi adeerna la dhihi jiray magaciisa Naasirow ninka jidka socda adeerna dhihi jirnay adeer nimanka jidka socdaan oo islaamada dhihi jirnay anaga hadii iskoolka soo baxno oo is dagaalno ummadas Ilaahayna kala celin jirtay hada waxaas ma jiraan iimaankii bay dadka ka baxeen islaamnimada ma yaqaanaan ilmihiina xataa hadaa wadanka joogtaan oo sheega wixii inaan ehelahay ehel maaha adiga dhalay iyo aabaha that's it waa dhamaat adeeraa jira iyo kanaa jira iyo ma jirto meeshaan ilmihii waa la isku fuulaya waa la isku kufsanaya marka si loo badbaasaas la sameeyo tan dawladda dadaal hal la yimaado tan dadka sameyn kara oo abaabuli kara meelo iyo xarumo lagu maskaxda looga dhayo ilmaha maskax dhayada u baahan yihiin xataa waalidka naftirkiisa la talin u baahan yahay wuxuu u baahan yahay care marka la reeb gareeyo ka bacdi qofka in noloshii caadiga ah oo ku soo noqdo ilaa nolol
traumatic ah oo galaya oo aad u qalqalsan noloshiisa si caadigaas ugu soo noqdo in la talin badan lala taliyo u baahan yahay in maskaxiyan la waxay u baahan in la farxad geliyo u baahan yahay in dhar iyo alaaba loo gado u baahan in meel degan lagu haayo u baahan yahay xarumahaas oo dhanna aasaaskooda waa nala ka rabaa haddaa Soomaalida qof kastaana ka qayb qaadan karto actually aniga dhinacaasaan rabaa inaan ka qayb qaato Naasrow hadda ii suurto gasho anigaba in gabar iska miskiin oo iska single mother oo weli ilmo ka daba cararaysaan ahay laakiin hadda ii suurto gasho wallahi xarumahaas haddaan dad i caawiyo helo aasaaskooda waddanka gudihiisa waan rabaa inaan sameeyo marka walaal waxaas oo la isku daro dhan looga qayb qaadan karaa insha Allah inaan dadaalno insha Allah aad iyo aad ayaa ugu mahadsan tahay Aamino runtii waxaad ka hadashay xaqiiqa ayaa ka hadashay waxaana aad iyo aad ii soo jiitay insha Allah clipkan aan gooni u soo jari doono kana dumarka kula dardaarantay waana arrin la dareemay in dumarkii maaragtay ay sahladeen oo ay wax sahlan ka dhigtaan inay qof walba iska soo dhaweystaan ilmihiina markuu kalsooni helo kalsoonidiisii laga faa'iideysto marka dumarka meel walba ay joogaan waxaanu kula talinaynaa inay arrintaa ka feejignaadaan hal arrin Naasir Abow adoo raalli hal arrin oo yara ilaawaa jiro oo kuwa qurbaha ani ma garanayo wadamada kale soo shaqeeyaan laakiin wadankan sharci ayaa jiray hadda ayaan dhaweeyay soo baxay oo acta cusub laakiin lagu waxeen karo hadda UK oo kala daadagan tahay single mother tahay waa lagu furay ilmihi waa karsato nina u baahan tahay naftaada nafay u baahan tahay nin kale rabtaa inaa aroosto ninkaas kale rabta inaa aroosto sharcigu wuxuu ku ogol yahay inaad jeegarayso ninkaas inuu criminal file leeyahay iyo in kale waa sharci cad waa caadi ah ani waxaan rabaa inaa arooso Maxamed Jaamac Faarax okay Maxamed Jaamac Faarax daadiisa dhalashada waxa dhan booliiska u tagaa waxaan rabaa ninkaan rabaa inaan guursado ilmaana haystaa I wanted to know if he has criminal file muu leeyahay dambiye miyuu ninkan sameeyay marka waa lagu sheegaya Yurub badankeed saas inay tahay umaleynaa America ma hubayo Australia laakiin saasa umaleynaa badanaa European kuwa isku sharci dhow yihiin Soomaaliya idukana aad uga fiirsada ninka aad gursanaysaa because ilmo badan waxaa lagu kufsado gurigooda dhexdiisa habarta ninkeedii aa kufsadaba ma garatay marka Soomaalina way ka dhacdaa halkana way ka dhacdaa marka nimanka aad soo guursanaysan ilmiina dhex keenaysan ogaada marka xataa nin kala guursanaysidna gabar yahay iska sug certain age inta ilmaha ay kaaga gaarayaan markaas waxaa jiro age ay aad u yar yihiin oo aad ay u nugul yihiin iyo age xoogaa soo waaweynaadeen marka xoogaa soo waaweynaadeen sahal ma lagu kufsan karo haddaad dadaasho nin fiicanna aad maaragtay guursato oo ilaahay nin kaloo fiican kugu soo aadiyo haddii kol haddaad aabbahood kala tagteen oo calafka halkaas ku dhammaaday bal ninka dambood u keenaysaana aad uga fiirsada oo nin macnaha wanaagsan ha ahaado iskana soo baara Soomaali waaya kaliya kuma filna ha ku aaminina iska soo baara oo maxay ahayd soo baara inuu dambi hore u galayo in kale niman badan waxaa jiro ilmo soo taataabtay oo Soomaali ah oo hadhowna naaga kale oo single mother gaadgaadayo kuwaasoo kale weligiis ma ku dhaha inay cunuga soo taataabtay laakiin booliiska haddaa u tagto wuu ku sheegaya wuxuu ku leeyahay ninkan marba looga shakiyo inuu cunug saan yeelay way jirtaa wax jiraan ka hadlayaan wax iskama hadlooyo marka iyadka dinkana sidaas sameey Soomaali kasta uu yahay do not trust him ha aaminina Aamina aad iyo aad u mahadsan tahay dhinaca kale waayahan waxa kacsan kufsiga aad loo sheegayo laakiin waxaa jira kufsiyaal been noqon kara in la been abuurto rag badan la nabsado dad ujeedooyin kale leh ay jiraan marka haddaad dumarka tihiin dhinacaasna maxaa yani ka jiro oo ka warhaysaan ay dhici karta in la isbeen nabto okay waxaa jira aniga magaalada aan deganahay ayaa ka dhacday laba case oo kala duwan intaana bariyaha aalaaba waan maqlaayay magaaladan waxa ka dhacday nin gabadhiisii aan waxba yeelin oo isaga dhalay in la dhaho maxay ahaatone gabadhii kufsaday iyadoo naagtii because ninkii iyada isdagaaleen ninkii waxay ku aragtay asoo baabuur ku wata gabar kale u shukaansanayay waa masayrtay inkay naftay waa doqonnimo weyn waay abaayo ninka hadduu ku nacay waa ku nacay that's it waa ku nacay ninka haddaa marka horeeto aad isfahmi kari weydaan oo aad dabeecada iskula wada joogtaan meesha ay ka baxdo ninka ma isku qasbaysid ninka orod bax lafahaaga nin u doono laakiin ilmahaagii iyo aabbahood xiriirkoodii ha dilin kuwaan waxba kufsanaa jiro oo waa kufsadeen la dhahay oo markii dambe ilmihii ay maxkamadda ka marqaato fureen oo dhaheen hooyadeenaana dhahdasaan dhaha because maxkamadaha noocaas oo kale ciyooma soo dhammaadaan haddii cunuga ninka dhalay wax badan ay socdaan wax badan socoshada cunugiyaa koraaya marka gabadhiyaa kortay gabadhii markay kortana iyadii waxay tiri aabbahay ma i kufsan aniga been waaye hooyadaya she was jealous marka saasay tiri dumarow idinkana waxaasoo kale taceeb bay idinku yidhi absolutely Naasir waxaasoo kale inay imaadaan ma aha
sida ay tahay dhinaca kale in looga fogaado ayay tahay in inta looga fogaado ma garatay maxay ahayd toonay gabadha naftirkeeda hadday criminal file leedahay waa la soo ogaan karaa sida ninka loo ogaanayo si lamid ah loo soo ogaan karaa maaha ninka keliya laakiin sharcigaa wuxuu ku soo degay ragga sharciga hadda kuu sheegaya aktigaas ragga ku soo degay oo gabar ingiriis oo ninkii qabay gabadha ka kufsaday ayaa uuna dilay weliba kow ka siiyey ayaa sharcigaa darteed loo soo dejiyey oo marka iyadaa lagu bilaabay marka taasina walaala waa qalad kale waa iyadana wax inay ku kacaan dumarka ay tahana ma aha meeshaan guurka waa raxmad iyo jacayl raxmad iyo jacaylka haddii la iska waayo oo la kala tago waxa wanaagsan in si wanaagsan loo wada xiriiro hadday ilmo meesha yaallaan ma garatay haddaana xitaa ilmo meesha oolin qofki maalin nikaax idin dhex maray xaq baa isku leedihiin saa darteed waa inaa is ixtiraamtaan laakiin isnabid iyo waxbuu kufsada beena iyo ma dhici karto walaalo iyadana ha ka fogaadeen gabdhaha aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay waqtigaada qaaligaana siisay runtiina waana kaaga mahad celinayaa aamino waxaan rabaa inaan ku weydiiyo tv-gaada cusub waxaad oga hadli doontaa dabcan arrimaha bulshada marka ma laga yaabaa inaad xuquuqda dumarka iyo ka hortaga kufsiga aad barnaamij fiican ka siisaan oo aad maaragtay ka wacyigelisaan dadka naasir aniga horta maadaama aboowe aan printing media kasoo bilaabay saxaafadda haddana radio haddana waa soo daalay qof soo daashaa ahay wax badan soo shaqaynaysay waxaan garan karaa daloolooyinkaan garan karaa waxyaabaha hadda miidiyaheena ka maqan miidiyaheena waa dadaalay runtii telefishinno badanaa la sameeyey waxaan baranay wax xuquuqda hadalka wax la dhahayo oona hore u haysan jirin waxaasoo dhanaa walaala baranay laakiin maadaama hadda anigu aanan ahayn qof iska ganacsada ah oo ganacsi iskaga furanayo maadaama aan ahayn 4 sano ka badanna waxa aan soo diyaarinaya asaga xataa naftirkiisa furitaankiisa telefishin oo single mother furayso ciyaar ma aha ciyaar magtahay easy kuma furmaaye ilaa lacag ma haysta single mother iska haysta ilmooda isista ma garatay sida cunug la korinaya camal aan dhowr sano kasoo shaqaynaa sanadka shanaad ay tahay insha Allah waxaan rabaa 1 April kowdeeda inuu hawada soo galaan rabe laakiin maadaama Soomaalida ay dhahayaan April ma kowdeeda maalintii beenta waxaan ka baxay telefishinkan inay beenta raaciyaan April labadeedaan ka dhigaya April labadeedu soo galaya hawada insha Allah marka walaalo waan jecelahay waxaan jecelahay vacuums badan waxyaabo badan oo hada saxaafadda hadda ka maqan inaan anu saxafiyiinta waa ka fiicanahay ma dhahaayo laakiin waxyaabo badan oo hada saxaafadeena ka maqan inaan ku buuxiyo oo ay ka muuqdaan ayaan jecelahay waxaan jecelahay inuu education iyo entertainment iyo information saddexdaas oo media ka kooban yahaba si cadaalad ah inuu waxeeyo diintii wixii waxbarashadii kale everything inuu iskuul dadban noqdo ayaan isku dayayaa runtii oo wax badan laga faa'iideysto oo aanay u noqon reero inay iska soo caayaan meesha maaragtay reer hebel baasaan yeelay reer hebel baasaan yeelay inay reer iska halgaadaan oo iska dhex tuuriyayaan telefishinka ma doonaayo marka insha Allah wax badana walaal macaan aan ku dadaali doona waana soo dhaweynayaa anoo barnaamijkaaga ka faa'iideysanaya telefishinkayga maaha telefishin qabyaaladeed waa telefishin Soomaaliyeed waana waxana weliba rabaa inaad diiradda ku saaro dadkan qurbaha ku baaba'san ayaa u badnaan doona 70% coverationkooda kaasoo noqon doona 30% wuxuu noqon doonaa dadka gudaha ku nool sababta waxay tahay alin telefishin oo kaleeto oo dhan baa dadkii gudaha ku noolaa ka wada waxaynaya marka waxaan u malaynayaa taasna inay inaga saamixi doonto u malaynaa walaal macaan insha Allah waa iska dadaalaynaa ilaahayna ha nala jiro hambalyo runtii aad iyo aad baan ugu farxayaa insha Allah tacaala waxaanu dadka ugu baraarujin doonaa inuu noqon doono TV macnaha way jiraan waa la dadaalay laakiin waa inuu noqdaa mid isbedel leh sida ka dhawaajisay saddexda qodob oo muhiim ku ah TV-yada ama idaacadaha waanu ka hadli doonaa insha Allah tacaala TV-ga saad ayaan soo dhaweynaynaa ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo wadankii waxaa jirta gabar marka la kufsado in la baaro la ogaado way adag tahay DNA-gii waxaa loo diraa Kenya oo kale loo diri karaa wadanka dhan meel DNA lagu qaado ma jirto marka arrintaas oo kale dhakhaatiirta iyo ganacsatada Soomaaliyeed maxaad kula ka oran lahayd horta annaga Soomaaliya inkastoo odaha kala yara rogroganay meel bacalan ka taaganay wali waa isu furannahay marka haddii hal shay baar oo DNA lagu qaado oo gudaha wadanka meel kamid ah la heli karo in lagu dadaalo way fiican tahay waxaasina waxay u baahan tahay forensic science la dhahaa oo forensic science ki badan marka waxay noqonayaa criminology dhinaciisii oo forensic ah wuxuu noqonayaa dhaqaatiirtii iyo maxaytan forensic psychology oo asagana ah naftirkiisa forensic department ka qayb noqonayo marka waxa loo baahan yahay taas oo kale
annaga Soomaali dad isku gargaara waaye waxaas wax ka waxaysana lacag u aruurinaa haddaan intaan sanduuq u furna lacag u ururino dadkeennan Soomaaliyeed meel walboon joogno hal klinik waa samayn karnaa ma fahamta hal klinik oo aad u ballaaran oo xitaa ardada waxaas baranaysa xitaa ay researchka ku sameeyaan haddaan samayno runtii caawinaad fara badan ayay noqonaysaa because Kenya DNA la geynayo waxa kaloo iyadana jiro waxa jiro kits yaryar oo DNA-ga lagu qaado laakiin kuwaas waa marka gabadha uur ku soo baxo oo uurkii ninkii ku inkiro unbuu wuxuu caddaynayaa hadhowta cunuga markuu dhasho uurka cunugii ninkii dhalay marka kaa wax ma taraayo laakiin klinikada weyn waxay u baahan tahay walaa in lacag la geliyo adduunka waxaan la samayn karin ma laha wax kasta possible waa la samayn karaa laakiin in Soomaalidu isgargaarto qolyahan annagana xukumo dowladnimada noo haya lacagta donoriska dam ka siiya maalin walba guryaha ka dhista dibadahana ayaguna inay xataa hal maaqta meel walba ay joogaan ay ka sameeyaan hal klinik ama dalalka kale na caawinaya sida Turkiga iyo hadda waatan la kala go'o qaar Turki caawinayaan qaar Imaaraadka taqfasho ku wataano qaar Qatar wataano bal waxa rabtiin bas ka watee bal dadkaas waxa tiraahdaan hal klinik meel walba nooga sameeyo oo lagu baaro DNA-ga forensic clinic ah iyadana waa loo baahan yahay haddii dadaalkaas la sameeyo waa la heli karaa aad iyo aad ayaa umahadsan tahay runtii aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinayaa waqtigaada qaaliga ah codkaada dheer waxaan rajaynayaa inuu saameyn ku yeelan doono waxaan u mahad celinayaa dhammaan daawadayaasha nagala socday bartayda Facebooka iyo YouTube-kaba insha Allah dhammaantiin waxaan leeyahay aad iyo aad ayaa umahadsantihiin aamina ma noqon doono barnaamijkii ugu horreeyey aan ku marti qaado insha Allah tacaala waan kusoo mar labaad kugu soo xasumi doonaa arrimo kala duwan adoo ka hadli doontid waxaan hawada ka weydiisanaa barnaamij TV-ga marka la furo in shaqo laga siiyo insha Allah dadka shaqada waa soo publish gareynaa aniga shaqada mid oo garabation iyo hoos lagu bixinayo maaha Naasir waa soo publish gareynaa shaqada waa soo publish gareynaya ma fahamtay all of you welcome qof alla iyo qofkii shaqo bixito ka shaqayn kara halkaas iyo ama xarumaha hataa wadanka aan ku yeelanayno ama dibadaha kulligii waa in soo dhaweynaya insha Allah aad iyo aad ayaa umahadsan tahay waxaan ku rajaynayaa habeen wanaagsan waqtigaada qaaliga mar labaad iyo mar saddexaad aamina de waxaan kaa maqli jiray BBC-da aan kaa maqli jiray maogta marka laakiin maanta inaan anigii ku waraysto farxad weyn bay tahay CV-gaygaan gashan doonaa aad iyo aad baan kaaga mahad celinaa gabar waxaa tahay sumcad ku dhexle sharaf ku dhexle dadka iyo ummadda Soomaaliyeed dadkanu ay aad ku jecel yihiin dabcan aamino waxaan leeyahay ilaaha ku sharfo dumarkeenana ilaahay subxaana wa tacaala hanoo dhooro ugu dambeyntii maxaa shacabku u sheegaysaa aamino adiga kaama dambeynaya hadalka insha Allah haya walaal salaam calaykum عليه السلام